ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بقى مهد إسكاله لما أنتهت نحريسي نبتقلينا وحن ويدين إن رسوشيسي قارها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبرنامجكي آخر الزمان توكس لكتشر كمانتا waxaynu si gaara bal u taabanaynaa xaaladda maanta oo caalamka ku jiro iyo xanuunkan coronavirus. xanuunkan coronavirus ka eegi mayno from medical perspective inagoo eegana halkuu ka yimiday iyo viruska nooca loo yaqaanay iyo intay u kala baxaan iyo ma garanaysaa jinka viruskan imika taasi eegi mayno oo dhinaca perspectiveka medical perspective ka eegi mayno taa dhakhaatiirta iska leh waxaynu ka eegaynaa bal inagoo maanta xaaladan lagu jiro iyo xanuunkan iyo ma garanaysaay bal ilaahay subxaana wa tacaala iyo nebigiisii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxyaalaha ay inoo sii sheegeen. nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam horuu uga sii digay xanuuno badan inay soo bixi doonaan ma garanaysaa maalmaha ugu dambeeya adduunka. soo bixitaanka xanuunkani wuxuu calaamad kale u yahay iyo xanuunadii ka horreeyeyba ma garanaysaa caalamka sida aadka ah ugu fiday caalamkani inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey aakhiru zamaan. xanuunkani hadda ma garanaysaay galaaftay dad aada u fara badan oo ku kala nool caalamka ha ugu badnaadeen ma garanaysaay qaaradda asia iyo qaaradda yurub iyo qaaradda america ma garanaysaay u s a north america. qaaradahaas saddexdaa qaaradood buu hadda ka jiraa intaynu ogsoonahay dhimashooyinka ugu faraha badan leh halkaasi ka jiraan. xanuunkan saynu maqalnay bilowgii wuxuu ka soo bilaabmay oo inaloo sheegay ma garanaysaay china. xanuunku halkaas markuu ka soo bilaabmay waxaa la arkayay dad badan oo ka hadlay culamo badan oo ka hadlay pointkooguna ama sooska ay adeegsadeenna runtii waa mid aan garan waayey, laakiin waxay ku tilmaameen xanuunkan inuu yahay jundullah. waxay yidhaahdeen ma garanaysaay xanuunkan ma garanaysaay chinesku ilaahay u soo diray ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo sidaa ina leh oo xanuunkii china ka soo tegay. waxay yidhaahdeen xanuunkan gaalada loo soo diray iyagoo sidaa ina leh ayuu dalalkii islaamka ku fiday. maantana cid uu dhaafaya ma haddana waxaan maqlayay iyaga oo leh ma garanaysaay waa fiican yahoo wuxuu xidhay ma garanaysaay dhulkii khamriga lagu cabayey iyo baararkii iyo gaaladiibuu isku socodka u diiday viruska yari bay yidhaahdeen. waxaa kala garan waayey inay ilowsan yihiin iyo inay sheekadu tahay ma
ma garanaysaay dee sheeko dhinac keliya uun wax laga eegayo waxba la arkay balay waxaan isweydiiyey naftayda oo kuwan saa ka sheekeynaya miyayna ogeyn fayraskani baxanuunkani inaa masaajiddii ilaahayna u xidhan tahay oo xajkii u xidhan yahay haddii gaalku uu dhib ku qabo baabka laga xidhay innagu mayaynanu dhib ku qabin masaajidayna laga xidhay aynu gali kari laana dhibkani waa dhib ummadda caalamka gaal iyo islaamba nin walba iyo waddan kasta si isku mid ah oo arxandarro ah ma garanaysaay uu aafeeyey marka farfiiqa ma garanaysaay marketingka laga dhiganayo runtii maaha mid meesha qabanaysa ilaahay subxaana wa tacaalaa wax wal oo caalamkan ka dhacaya ogaal buu u yahay wax wal oo caalamkan ka dhacaya cilmigeeduu leeyahay wax wal oo caalamkan ka dhacaya bilowgiisii ilaahay baa suurto geliyey oo doonidda ilaahay bay ku jiraan taasi waa mid aynu ka dharagsannahay oo diinteennu ina bartay oo ilaahay inoo sheegay oo nebigeennu ina baray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam 13 sano oo uu mako ma garanaysayay joogay wuxuu ummadda barayay tawxiidka awoodda ilaahay iyo kelinimadiisa intii uu diinta faafinayay intii ugu badnayd waxay ku baxday barashada ilaah laakiinse maanta waxaad u malaynaysaa taasi in la ilaaway waxaanay siri oo talow waxyaalaha qaarkood maanta caalamkan maanta uu dajaal adeegayo nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam uu hore uga digay nebiyadii ka horreeyeyna siduu nebigeennu inoo sheegay uu nebi walba ummaddiisa uga soo digayay laakiinse waxaa qur-aanka iyo nebigu way inoo sheegay mar walba nebiyada lagu lahaa war saacaddan aad sheegaysaani waa goorma waa iska xiyaya khuraafaad waa saacadii makama aan dhacayn markaa dad badan baa u haysta ka hadalka aakhiru zamaanka iyo ma garanaysaay in la soo hadal qaado sheeko aan loo baahnayn oon daruuri ahayn dadka in la cabsi gelinayo in la noqonayo ma garanaysaay prophets of doomsday nebiyadii ma garanaysaay halaaga sheekadaasi waa sheeko folos ah nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo nool ayuu ka digayay dajaal iyo soo bixitaankiisa iyo fidmooyinkiisa maxaa diiday maanta oo ma garanaysaay waa halkii soomaalida shiidii lagu jiro maxaa diiday inaan laga hadlo calaamadaha maalmaha u dambeeya caalamka waxaa ka mid a siduu ma garanaysaay nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam maalmaha ugu dambeeya in ma garanaysaay imaamadu ay joojin doonaan ma garanaysaay soo hadalqaadka dajaallo uu soo bixi doono calamkan oo la ilaaway wax baraaniyuu noqon doonaa maalintaa uu soo baxo imaam ka sheekaynaya dajaal iyo soo bixitaankiisa inaad aragtaay waa yarta haddaba waxa meeshan taagan dajaal sidii nebigeennu inoo sheegay barnaamij gaaraynu ku soo qaadan doonaaye waxaa barnaamijka si gaara u dul istaagayaa nebigeennu wuxuu yidhi dajaal markuu soo baxo 40 days buu caalamka joogi doonaa 40 dayskaasi maalin waxay u dhigmi doontaa sida sanadka maalinna waxay u dhigmi doontaa sida bisha maalinna waxay la mid noqon doontaa sida toddobaadka wasaa'iru ayaamihii ka ayaamikum buuri markaa maalmihiisa kale waxay la mid yihiin the rest of your days sida maalmihiina yihiin halkaasi waxa ka cad dajaal
markuu soo baxo uu maalinta koowaad ku jiro arki mayno, waayo wuxuu ku jiraa in a different time and space, dimension kale oo caalamkeenna ka duwan oo haddana isla caalamkana ayuu ku jiraa. arki kari mayno markaa, waayo sanad waktigeennan innagu aan ku jirno dimensionkeennan 3D-ga ah ma garanaysaayey waxa weeye mid ma garanaysaayey waktigiisu 24 hours uu yahay wey. maalmaheennu sanad uma dhigmaan, laakiin maalinta koowaadee dajaal waxay la mid noqonaysaa sanad, maalinta labaadna bil, maalinta saddexaadna toddobaad. saddexdaa marxaladood dajaal markuu dhammaysto wuu soo baxayaa markaa. maalinta ayaamihiisu ay noqdaan kuweenoo kale waynu arkaynaa markaa. odaygii dajaal oo nebi ciise iska dhigaya oo nebi ciise sheeganaya baa inagu soo bixi doona. dajaal markaa nebi maxamed oo nool abi axaadiista iyo culammada qaarkood ay tilmaamayaan in uu bilaawday oo la soo daayey. sidoo kale waxay tilmaamayaan dajaal in uu already bilowday oo uu dhammaystay maalintii sanadka u dhigmaysay, oo sidoo kale uu ku jiro dhammaysashada maalintii u dhigmaysay bisha. halkaasoo ka bilaabmayso markaa maalintii u dhigmaysay toddobaadka. maalintaa toddobaadka u dhigantina markay dhammaato dajaal waa soo baxaya. murtidu waxa weeye ninkii dajaal wuxuu socdaalkiisii koowaad ka soo bilaabay jasiiraddan maanta aan ku sugana ee la yidhaahdo ingiriiska. halkaas oo boqorkii ugu horreeyey ee ma garanaysaay ingiriis uu bilaabmay ma garanaysaay markay taariikhdu ahayd 900. halkaa waxaa ka bilaabmay maalintii sanadka u dhigmaysay. maalintii sanadka u dhigmaysay waxay soo gabagabowday dagaalkii labaad ee caalamka. maalintaas oo casrigii ma garanaysaay koowaad ee dajaal oo ahaa casrigii boqortooyada ingiriisku uu dhammaaday. waxaa soo baxay casrigii ma garanaysaay maraykanka. waxaynu ku jirnaayey waa casrigii maraykanka. casrigii maraykanka oo dhammaad ku dhow oo baabi'i doona, oo waxaa la wareegi doonta yuhuudda. waxaana soo bixi doona casrigii yuhuudda. casriga yuhuuddu markuu soo baxo ee yuhuuddu dhulka qabsato waa markuu dajaal soo baxaya markaa. haddaba kala guurkii baa lagu jiraa. saa ogsoon tihiin yuhuuddu dadaal badan bay ka gashay sidii casriga ma garanaysaay boqortooyadii ingiriiska loo baabiin lahaa ee cimaamadda loo saari lahaa maraykanka. haddana dadaal weyn bay ugu jirtaa sidii isla maraykankii ay cimaamadda saareen ay cimaamadda uga qaadi lahaayeen, ay iyaga laftoodu cimaamadda u qaadan lahaayeen. maraykankuna waa kala shaqaynayaa, reer galbeedkuna waa kala shaqaynayaa. dadkooguse in badani war ma hayso, waa lagu shaqaysanayaa. laakiin maalin aan maanta ahayn bay ka qoomamayn doonaan. xaqiiqdii markaa meesha waxaa jirta dajaal dadkii u adeegayey maalmahiisaa aan la arkayn dad baa u adeegaya. dadkaasi waa yaajuuj almaajuuj. dadkaasi xanuunadii ilaahay keenay, ilaahay xanuunada hore u soo wada dejiyey, oo maalintuu soo dejiyey waxa weeye maalintii unugyadeennu say u samaysan yihiin ilaahay uu sameeyey, ee inay sidaa ay u samaysan yihiin maanta inay u samaysmaan maalintuu ilaahay qadaray ee nebi aadan calayhi salaatu wasalaam uu abuuray. maalintaas ayaa waxaa dhinaca kale abuurmay wax alli iyo wixii ama chemical ahaan ama physical ahaan wax uga beddelaya abuuritaanka ilaahay unugyadeenna uu ugu talagalay inay ahaadaan
wixii wax ka beddelaya si xun u beddelaya ee dhibaato soo gaarsiinaya inuu xanuun noqdo maalintaasuu ilaahay qadaray marka wax caalamkan ku cusubi ma jirto only waxa caalamkan ku cusub waxa weeye wax la yidhaahdo discovery maanta discoverygaana rag baa laba waaweyn u furtay oo maalin walba tijaabiye xanuun cusub waxyaala cusub isku soo rakiba dawooyin cusub isku soo rakiba 24/7 raadinaya ma garanaysaa ayay hub ay iskaga celin karaan dad aan la garanayn laakiinse ujeeddada saxdii ay tahay hub la doonaya inaa caalamka lagu cabsi geliyo laguna qabsado xanuunkan markaa jayraha hadda lagu tijaabiyey waxay isweydiin mudan wakhtiguu ka bilaabmay wakhtigii jaynuhu uu u dabaaldegayey sanadkiisa cusub wakhtigaas oo ma garanaysaye ah wakhtiga caalamka socdaalka ugu badan caalamku dhaco markaasaa lala beegtay oo lagu tijaabiyey xanuunkani wuxuu u badan yahay xanuun tijaabo iyo ma garanaysaye daata laga urursanayo bal qaabka caalamku ma garanaysaye uga falceliyo iyo sida ma garanaysaye uu caalamka u gaadho xogtiisa la urursanayo si loo sameeyo kani ku ka khatarsan oo ujeedkiisula yahay ugu dambaynta dalalka islaamka gaar ahaan kuwa carabta in lagu soo daayo tirada carabtana ma garanaysa in lagu gabagabeeyo si ay yuhuuddu jaanis ugu hesho in ay dhulkaasi si dhib yar u qabsato oo eedina ka soo raacin xanuunkani wuxuu u muuqdaa xanuun laga soo shaqeeyey xanuun ma garanaysaye ilaahay subxaanahu wa tacaala loo nisbayn karana maaha dembiga ay ummadda ka galeen yajuuj iyo maajuuj xanuunkan niman dhagar qabayaalah oo yaajuuj iyo maajuuj la yidhaahdo ayaa caalamka ku soo daayey oonan cidnaba u naxayn kuwowga ay maamulaan iyo caalamka the rest of the world aanan u naxayn waa niman qorshahoogu yahay populationkana caalamka inay yareeyaan by any means sidii alliya siday ku yarayn karaanba inay ku yareeyaan marxaladdaa kala guurka ee dajaal uu ku jiro wuxuu ugu tala galay in uu awoodda uu ku wareejiyo ma garanaysaay mustaqbalka dhow waxaan u malaynayaa qiyaastii haddii theorygani the correct one yahay within 9 years in ma garanaysaay yuhuuddu ay baawarka kala wareegi doonto maraykanka baawarkaasina maaha kii hubka iyo dadka waa kii lacagta markii maraykanku uu la wareegayey ma garanaysaay casriga maraykannimada ee casrigii boqortooyada la baabiinayay istralniintiibaa hawada laga saaray dollarkii baana la adhabtigareeyey wakhti waxay u muuqataa lacagaha la kala wareejisanayo ay soo bixi doonto nooc cusub oo lacaga oy maamulayaan yuhuuddu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay oo xadiis laga soo wariyey in ma garanaysaay dajaal iyo fakhriga iyo ma garanaysaay deynta uu ilaahay ka magangeli jiray xaaskiisaa waxay weydiisay nebi maxamedow waxaan arkaa adoo ilaahay maalin walba ma garanaysaay ka magan galaya deyntee what's the problem maxaa jira nebigeennu wuxuu yidhi markaa deyntu waxaa ilaahay uga magan galaa qofka deyn ku jiraayey waa qof markuu hadlayo been sheega waa qof markuu ballan qaado ballantii ma garanaysaa oofin waaya uu nebigeennu ku tilmaamay waxaana ku kalifaysaa deynta uu ku jiro dajaal wuxuu ka shaqeeyey in caalamka dhanba deyn uu geliyo lacaguu meel walba la ordaya hadda marxaladdan maanta aynu ku jirno xanuunkan marka labaad waxaa loo adeegsanayaa in deyn caalamka lagu geliyo dad badan baa lacag waayey qaarna waa waayi doonaan shirkado badan
waxaa lagu kala wareejinayaa dhaqaalihii caalamka oo intii awal gacanta ku haysay ayaa sii xoogaysanaysa waxay hayeen dadkii kale waxay jirayna waa u dhammaanaysaa iyaga dhaqaalahoogu markuu hoos u dhaco berri ka maalin stock marketku cirkaasuu u mari doonaa laakiin kuwii kale masaakiintii waxay iyagu stock market ku leeyihiin lama jiro waa eber wey waxoogii eber markay noqdaanna dayn baa madaxa loo gelinayaa lacagaha bugta ah ee ingiriiska maraykanka iyo meel walba iminka soo daabacanaya ee intaasoo trilyan oo from thin air hawadaa laga soo samaynayaa ay soo daabacayaan waa lacago loogu talagalay bini aadanka in lagu qaamaysto sida nebi maxamed uu sheegay dadkaasi ay runta u sheegi kari waayaan si dadkaasi ay ballan u qaadi kari waayaan ay noqdaan dad dajaal waxa uu amro maalintuu u baahdo sameeya iiraan dagaal ku qaada they have no choice waa ku qaadi doonaa ruushka dagaal ku qaada they have no choice waa ku qaadi doonaan waayo dayn bay cirkaa marsan yihiin marka waa inay resourceska caalamka kale soo xadaan waa inay qasab ku soo qaataan oo bal at least deymahan ay galeen iyo dhaqaaluhuga baaba'ay ay sare uga soo qaadaan taasi baa caalamka ka socota marka dadka marketingka ka dhigaya wixii caalamka ka dhacaba iyagoonan indho dhaadheer ana ku eegayn ilaahay subxaana wa tacaala nuurkiisa hayna siiyo oo ma garanaysaay waxyaalaha caalamka ka dhacaya sida saxday u socdaan ilaahay hayna tuso sabano aakhirkana suuratulkahf waxay ku tilmaamtay markii ilaahay subxaana wa tacaala uu nebi muuse iyo khadar isu geeyey waxyaalo badani siday u muuqdaan inayna ahayn ay tahay sidii nebi muuseba uu u arkayey wax inay dadku u arki doonaan laakiin sida saxdii ay tahay sidii khadar wax u arkayey marka conclusionka muuqaalka ah ee markaa yarba lagu wareegayo inayna caalamkan ka shaqaynayn hadda aan ku jirno ayaa diinta ay tilmaamaysaa chinesku waxay dagaal kula jiraan oy diideen inay madaxa u dhigtaan nimankaa caalamka maamulaya nimankii waxay u eg tahay inaad dagaal lagu qaaday laakiin waxa u eg tahay dagaalkii inay si xarago leh ugu guulaysteen haddana uu iyagii ku soo noqday dadkan maanta dhakhaatiirta iyo sariiraha loo laayayna dad marka horeba dan iyo aas laga leeyahay ma ahayn waa dad been loo sheegay oo cashuurtooda laga urursado oo ma garanaysa in lagu meel gaadhayey ku meelgaadhkiina wax yar baa ka hadhay waana ka wareegi doontaayo waddadii uugu talagalay dajaal baa ku dhacaysaayo waxaa wax la wareegi doona yuhuudda israa'iil baa caalamkan ka tali doonta preparationkii baa markaa lagu jiraa intaa preparationka lagu jiro dajaal arrimo badan buu ilaahay ma garanaysaa uu awoodu siiyey wuxuu wadan doonaa janniya cadaab jannadiiyo cadaabtii dajaal maalintii ma garanaysaa koowaaduu soo baxay ee wendey lakayeer way bilaabantay sectionkii ingiliisku berigaa uu bilaabay ciddii taageerta wuu jannaysiin jiray ciddii ka soo horjeesata waa ma garanaysaay ummaddaa laga hoosaysiin jiray qabiilada taageera maanta iyagaa dadka ugu cadcad kuwii waagaa diiday maanta iyagaa dadka ugu liita waa nidaamkii waa cadaabtii dajaal iyo jannadiisii wey tii baa maanta socota tii maadaamay weli socoto dajaal nidaamkiisii baa socdaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dajaal inuu sidoo kale uu ma garanaysaay uu awood u yeelan doono in uu roobka joojiyo inuu awood u yeelan doono inuu ma garanaysaay dadka ku idhaahdo waalidiintiinni baan soo noolaynayaaye miyaad rumaysanaysaa oo uu soo saaro dad waalidkoogii u egeeg oo welibana xasuustii waalidadoodii qaba oo ku idhaahdo intuu aabbahaa soo baxo ku idhaahdo
aabba miyaanadii xasuusan waagaan 10 shilin ku siiyey wax labadiinu isla ogeedeen haddaba ninka sidaa yeelan doona calaamadaha badan ee ma garanaysa ee awooddiisuna ma garanaysa ee awood aad ma garanaysa ee cajiiba u noqon doonto oo awoodihii nebi saleymaan oo kale ula soo bixi doono oo jinkuna la shaqayn doono maadaamuu roobka maamuli karana dad means sidii nebi saleymaan dabiilahana waa maamuli karaa waayo qofku markuu dabiisha maamuli karo unbuu maamuli karaa roobka which means dajaal wuxuu awood u yeelan doonaa inuu climatka caalamka iyo weatherka uu maamulo ninka noocaasa ee dadka ma garanaysaa intuu yimaado magaalo walba mari doonaa la yidhi ya magaalo walba u mari doonaa la yidhi ninkii baa caalamka wejiyadiisii koowaad iyo tii labaad ku jira oo wejigiisii saddexaad iyo inuu soo baxa dhimanta haddaba berri toole markay soo baxo ee uu dad dhintay uu soo nooleeyo ma waxaadna odhan doontaan allo mucjise ilaahay baa soo baxda nin dadka soo noolaynay saasaadna odhan doontaa waxyaalahan caalamka ka dhacay waa afcaashiisii aada marketinka ka dhigaysaan waxaan barnaamijka kusoo koobayaa ilaahay subxaana wa tacaala diinta ilaahay marketing uma baahna mararka qaarkood baa waxaan aad iyo aada uga dabqadaa oo fadhab ka noqdaa geed yaroo qalqalloocday ama laba xayawaan oo isku dheggan baa waxaa la soo ordayaan dadka qaarkood oo marketing uga dhigayaan ma garanaysaaye diinta ilaahay isagaa ilaalinaya inay xaq tahayna ma garanaysaaye uma baahna marketing iyo hebel baas ma garanaysaaye waxaani ku dhacay marketingka noocaas uma baahna marketingka noocaasi wuxuu ka shaqeeyaa caalamudajaal wax shaqaynayana maaha dhinaca ilaahay marketingka noocaasi kama shaqeeyo markaa nin ma garanaysaay faransiis ahayo filosofeer ahaa baa wuxuu yidhi beri ilaahay ma jiro buuri waayo buuri ilaahay ma jiro buuri oo hadduu jiro muxuu dadkaa dhibaataysan ee ma garanaysaaye maalin walba qaarkood la kubsanaya ee la dhacayo dee hadduu jiro waxbuu ka qaban lahaa buuri waa ninkaa filosofeerka fikirkiisu halkaasuu la galay waxaan arkayaa dad badan oo islaama oo fikirkoogu waxba ka duwanayn ninkaa oo raba ilaahay reaction inuu bixiyo oo wixii dhaco jiniiskii baa dad xidxidhayo virus baa lagu soo daayey waxyaala ka waaweyn baa viruskan caalamka ka dhaca laakiin reactionka noocaasa dadka raadinaya ee markay wax yaroo wax u eegba ma garanaysaa marketingka ka dhigaya iyagoo waxay meeshuu ka yimid qaab kuu yimid waxa looga dan leeyay aan ogayn caalamkani meeshuu ku jiro iyo halkuu u socdo aan ogayn halis bay dadka gelinayaan dadkiina waxay ku kalifeen qaar badan oo soomaaliya inay rumaysatay xanuunkan inaa dad gaaro loogu soo talagalay markaasuu iyagii ku dhacay markaasay isqarinayaan markaasay leeyihin ma garanaysaa oo aadnabuu kugu dhacay haa oo la gaal baa lagu moodiyey isqari hayse sheegi waata maanta meelo badan laga soo warramaya dadkii wada qabadsiiyeen waa qarinayaan wuxuu leeyahy oo hadduu kugu dhaco adig inuu ilaahay ku xanaaqay u muuqanaysaa xanuunkani sidaas maa xanuunkani hadduu kugu dhaco waa xanuun ma garanaysaa taladii nebigana aad qaadato oo cid ugu talagal haddaad cid ugu geyso xanuunkan waxa weeye dembi baad ku jirtaa bosishankaaga haddaad iska fadhido oo halkaagaa iskaga cibaadaysato xanuunkani wuxuu kuu yahay ma garanaysaa gurigaaga adoo joogo kugu yimaado ama adoo hawlo necessariya u baxay ma garanaysaa uu kugu dhaco waa xanuun aad ka qaylidaba maaha waa xanuun aad ku jana tegayso wey waayo xanuunkan waxa keenay niman dhagar qabayaala caalamka keenay ilaahayna waa ogyi subxaana wa tacaala nimankaa dhagar qabayaasha ah ee ummaddiisii ay ka imaan laada ee ma garanaysaa corruptionkoogu uu heerkaa ku gaadhsiinayo oo khalkhal ku geliyaba waxay samaynayaan meeluu ka yimid xitaa ma fahmi karaysa
waa corruption koogu iyo ma garanaysaa deception dadka saa loo khiyaamayo waxa weeye PhD ku haystaan 20 hours bay qarxiyeen New York. Who was behind it? As a matter of fact, ti waxay yidhaahdeen nimankaasa ka mas-uul oo kuwii dagaalka ku qaaday markaa nimankani niman cajaayiba wey deceptionka iyo dagidda siday caalamka u dagaanna niman lagu gaari kara maaha nimanka noocaasi barnaamijyo caalamka markay keenaan inay iska degdegto aad baa looga qurux badan yahay markaa tahay scholar islaamiya oo wax bartay oo ummadda islaamka inaad wax u sheegtana axaadiistii nebiga iyo ducooyinkii nebigaba ha la akhristo sidoo kale waxaasoo dhan nabarkow mar walba ka ah oo culimmadii ilaaweysa ayaan dareemayaa qur-aankii ilaahay qur-aankeenu naftayda iyo naftiinaba waa the utmost importance marjaca koowaadi waa qur-aanka marka koowaad qur-aanka u noqo akhri qur-aanka jis akhri hal jis bil kasta akhri maalin kasta akhri ilaahay waxaa laga yaabaa inuu ina badbaadiyo waayo ilaahay isagaa ballan qaaday oo waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati xijaaban mastuura buu ilahay yidhi waa ballanqaad nimanka dajaal iyo yajuuj barnaamijyada iyo ma garanaysaa biological weaponka caalamka ay kolba nooc ugu soo deynayaan ilaahay waa kaa ma garanaysaa badbaadini haddii aad ku badbaadi weydana oo ilaahay qadartaadii ay tahay inaad dhimato waad dhiman laakiin shahiid baa tahay marka haddii sno panic ha cabsanin ilaahay ka cabso xanuunku waa kugu dhici karaa laakiin there is no need ma garanaysaa inaad cabsato ilaahay baa laga cabsadaa dajaal cabsigelin buu caalamka ku shaqaynayaa wax walba in uu awooddii inagu idhaahdo ma garanaysaa awooddu waa nuclearka ma garanaysaa waxa keliya wax samayn karaya waa lacagta brograamada isagaa wataa si psychologically oo xanuunba kugu rido xanuunka hadduu ilaahay kugu talagalay waad dhimanay waa hadduu ilaahay kugu talagalo haddii kalena aduu kugu dhacay dhiman maysid dadaalka koowaad samaynaysina waxa weeye intii diinteennu sheegtay in ka badan lagaagamaba baahna diinteennu maalin walba ma garanaysaa nadaafadda way ka hadashay inaad 5 jeer weysaysato way ka hadashay inaad ma garanaysaa qur-aanka aynu akhrino way ka hadashay inaad ducooyinka akhrisanana way ka hadashay that is not kuma koobno keliya waktiga ay dhibaato jirtee wakti kaste waktiga ay dhibaato jirto na waa very muhiim qur-aankaana uga horeeya inaad akhrido waktigan aan ku jirnay samal aakhirkaana xoogga waa in la saaro suuratulkahf fahankeega iyo akhriskeega naftayda iyo naftiinaba maalinta jimcaha waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan coronavirus waa xanuun asalkiisa ilaahay caalamka keenay bilowgiisii hore oo wax imika soo baxay maaha laakiinse problemka maanta uu caalamka ku hayo iyo nidaamka uu u faafayo waa mid laga shaqeeyey maaha coincidence dhibaatadiisuna dhibaato maanta gaal iyo islaam iyo waxaa la idhaahda maaha waa cid walba wayna haysataayo innagana masaajidii baa inaga xidhan oo xajkii dhannaabaa inaga xidhan oo ma cumraysan karayno marka dhibka dajaal caalamka ka wado waa dhib caalamka dhan wada taabanaya gaar ahaan dadka islaamka taabanaya laakiin waktigani waktigii xanuunada laga cabsanayay maaha waa waktigii loo diyaargaloobi lahaa kani iyo ku ka daran qur-aankana la akhrin lahaa diintana loo noqon lahaa dajaalna la fahmi lahaa yaajuujna la fahmi lahaa waxyaalaha caalamka ay ka wadaan iyo waddaday u socdaanna aynu isla garan lahayn weeye barnaamijkan yaree kooban intaasaan coronavirus ka leehay intaan barnaamij kaloo la mida insha allahu tacaala aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illah